dadka green cardka haysta waxaa lagu bilaabay in iyaga naftooda la soo qabto la xirxiro xirxiritaankaas ayaa waxa uu keenay in dad badan airportka waxa u badan meelaha laga qabanayo dadka airportka qofka baxa haddii dembi yar oo hore aad lahayd hadday rabto ha ahaato canshuur aad bixin weysay oo IRS-ta hadday rabto ha ahaato traffic ticket lagu siiyey oo aad bixin weysay hadday rabto ha ahaato weliba waxyaabaha yaryar dadka badankood hadda waxay ku qabanayaan waxa waaye xashishada oo kale dad hadda ka hor cabi jiray waagi dembiga ay hadda dembi ma ahaba dalka Mareykanka badankiis isteediyada dhan way ansixiyeen oo waxay ka dhigeen xalaal luqadooda xalaal uga dhigeen waa legal waaye illegal ma aha xalaal saasan ka wada marka waagaas hataa haddii lagugu qabtay oo lagu xiray wax yar oo habeen iyo laba ah xabsi ku bariday hadda green card haysato way ku qabanayaan waana ku xirayaan dadka marka waxaa bilaabatay baa la yiri increased enforcement in sharciga ay si adkeeyaan oo dadka ay qabtaan green card ka haysta waxyaabaha loo qabanayo sida New York Times ay qorayso waxa kamid ah dadka traffic stops ka yar ka haystay waa lagu xiri karaa and then waxa la bilaabi karaa in lagu tarxiilo so hadda airportka ka hadda aad waxa la dhahay wax yar oo dambiga aad isku yar ogtahay tusaale ahaan hadda nin askariya oo dalka Mareykanka waliba cornel ah oo jaga sare haystay xaaskiisii bay xireen oo hadda 3 bilood xiran xaaskaas la xiray waxa loo xiray baa la yiri 30 sano ka hor bay bangi ever ah check ka qortay checkaas marka ay qortay lacagna meesha kuma aysan ogeyn waxa uu noqonayaa automatically in ay gashay dambi weyn oo felony ah bad checks ma la qori karo marka 30 sano ka hor dambi aha bay ku qabsadeen yar kale oo hadda waxa jiro isna shalay arooskiisa xaflad sanad guuro u dhiganayay oo intuu dalka ka baxay markuu soo laabtay gabadhi waa laga haray gabadhana citizen bay ahayd oo dalkan dhalasha Mareykan ay haysatay intay ku dhalatay marka traffic stops hadii ay jiraan waxyaabo infraction ah oo xagga gawaarida iyo waxaas tigidhi iyo noocaas ay jireen hadii ay jiraan baa la yiri marijuana possession oo kala dhaxay shiishad iyo wax ah lagu qabtay hadda ka hor hadii ay jirto in immigration violation uu jiray oo wax immigration aad wax isdaba marisay sida maartay wax isdaba marinta sida marka aad qaadanaysay in aadan si war sax ah aadan sheegin processka aad u martay in uu adoo green cardkii haysta in haddana wax applicationkaaga wax ka qaldanayeen oo hadda rabto dib ka saxba waxa kale oo dadka green cardka haysta ay hadda ku target gareynayaan haddii 6 bilood ilaa 12 bilood ka badan dalka aad ka maqan tahay inta u dhaxaysa over 6 months hadda ka maqneed dalka 6 bilood ka badan iyada nafteeda waxa ay keenaysaa oo ay dhalin kartaa in lagu qabto oo lagu xiro markaad airportka ku soo laabato marka waxay rabaan inay ogaadaan inaad connection fiican dalka aad ku leedahay oo aad business iyo address iyo bangiyo iyo waxa aad ku leedahay dalka aad ka dhex shaqeyso taxpayer aad tahay inay ogaadaan so 6 bilood ka badan hadaa maqan tahay waxay sheegeen in ay u qaadanayaan in aad dalkan aadan waxba uga baahnayn oo aad ka socotay maadaama aad tahay qof dhalasho kale haysta oo ku baxayo gribar wuxuu ku baxaya passportka dalkiisi marka immigration violation hadii uu jiro tigidho yar iyo waxaas hadii jiraan maartay waxyaabo canshuuro iyo howlahaas oo kale hadda ka hor buuq kaaga furmay hadda dalka ka maqan tahay 6 bilood ka badan arrinkan waxay bilaabeen inay dadka u xirxiraan oo howlahan ay si fiican uga shaqeeyaan tan kale oo keeni karta in lagu qabto oo ama airportka ka soo laabo ama dambaha ka soo gashay waa hadii ay dareemaan in aad national security-ga amniga dalkan aad maartay caqabad ku tahay marka arrinkan isaga waa arrin vague ah oo iska weyn oo iska furan sheekadan way furan tahay si ay ku cadeynayaan inaad dalkan aad riski ama ku tahay maartay threat ah ku tahay iyaga sheegi doona laakiin dad badan ayaa waxa dhacayso in loogu soo gabado arrinka isaga ah tan kale oo ugu dambaysa waxa waaye dadka kambaniyada ama agenciyada aan ilaahay kambaniyada orane agenciyada dawladda immigrationka criminal recordka iyo waxan dhan baa isku xirtay ilaa trafficka marka waa agenciyada dhan baa isku xiray data sharingka aad u badan marka informationkaaga waa la isla wadaagaya hadduu saas u mariyo ama sawir u ka qaado waxa ogaanaya in wixii aad gashay ama haddii aad horay wax u lahayd
way ogaanayaan haba yaraata hadday rabtee saddexaadna waxa waaye qofka green cardka haysta hataa haddii uusan dembi lahayn baa la yidhi waxaa lagu bilaabayaa marka aad baxaysid iyo marka aad soo laabanaysidba waxaa la bilaabayaa biometric in lagaa qaado oo sawir lagaa qaado wejiga lagaa sawiro iyo farahaba lagaa qaado markaad sii baxaysid iyo markaad soo noqonaysidba so waxay ururinayaan biometric data fara badan bay urursanayaan wejigaaga sawirkaaga hadda waa aragteen ice markay qof istaajiso intuu qofka doodayaba oo u murmurmaayo waxa already officer kale ayaa app intay la soo baxaan bay wejiga sawirka kaaga qabanayaan automatically wuxuu leeyahay naga soo wadnin qofkan waa citizen uu garanaya so waxay bilaabeen facial recognition in ay u isticmaalaan biometric si ay u ogaadaan qofka waxa uu yahay app bay samaysteen oo ay ku ogaanayaan qofka waxa uu yahay marka intaad doodayso aad leedahay aniga citizen baan ahay lama qaban karo lama yeeli karo halkan aan deganahay waxaa already waa ku akhristeenba nimankan marka waxaa la rabaa baa la yidhi dadka green card holderska ah waxay u baahan yihiin marka hore horta bal xuquuqdaada garo waxa xaq u leedahay iyo waxa xaq lagugu leeyahay kala garo baa la yidhi know your rights marka ugu horeysa haddii aad green card holder tahay waxaad xuquuq u leedahay iyo waxa xuquuqda lagugu leeyahay waa inaad kala garataa waxaa kale oo badanaa la sheegaa markaad haddaa aeroboortka ku soo noqonaysid iyo haddii kaleba documentskaaga wado koobiye ka qaado documentskaaga wado haddii bangi aad isku cadaynayso bangi statementyadaada waxaaga wado haddaa isku cadaynaysid adresskaaga telefoonkaaga waxaa laga yaabaa in uu hasku halaynin inuu damaa laga yaabaa so warqado physical ah oo documents ah oo cadaynayo dalka weli inaad connection ku leedahay oo aad degan tahay oo aad ka shaqayso oo bangi kaaga furan yahay oo liiskaaga aad wadato oo guri aad degan tahay warqadahaas iska qaado koobi ka qaado boorsada yar aad wadato soo gasho because waxaa laga yaabaa in boorsooyinka waaweyn haddaad soo gashato aadan jaanis u helin aad ku soo qaadato midda kale waxaad xaq u leedahay oo kale haddii lagu qabto in aad wacan karto safaaradda dalka aad greenka baasboorka ka haysato ilaa markaad green card ku socoto waxaad haysataa American citizen ma tihido baasboor Americana kuma socotid waxaad wadataa wadan kale like safaaradda Soomaaliya oo kale baad wacan kartaa xaqna waa u leedahay haddaa Soomaali tahay oo lagu qabto inaad safaaraddaada wacato baa la yidhi marka dadka waxaa la bixinayaa digniinahaas waxaa ka mid ah qofka haddii uu is og yahay in wax ay si ka yihiin oo wax ka qaldan yihiin ama horey ha loo xiro ama horey wax yar dembi ah u soo galo wax yar haddii minor infraction hadduu jiro haba yaraataba misdemeanor iyoba gaarinba felony iyaysan gaarin dembigaas dembi weyn uusan noqonin wax minor ah haddii uu jiro oo yar oo adiga iyo sharciga aad isku aragteen hadda ka hor dhulka dhaqaajinin baa la yidhi haddii aad rabto inaad baxdo marka hore ishubi qof ishuba oo green cardkiisa ishuba noqo 6 bilood ka yarna ka badanna ha maqnaanin oo 6 bilood ka yar waa inaad maqnaataa si ay u caddeeyaan residencygaaga iyo meesha aad degan tahay iyo dalka inaadan ka takluusin xilli adag baa lagu jiraa oo xaalku uu adag yahay Soomaalida waa arkaysaan il gooniya ayaa loo yeeshay si gooniyana waa looga hadlayaa laakiin sida aan horey idinku sheegay oo videoga hore aan ku samaynay ujeedka ugu faraha badan oo Trump iyo xertiisa ay wadaan waxa uu u badan yahay it has nothing to do with waxa la dhacay iyo waxaas shaqo kuma laha waxa shaqada ay ku leedahay in Minnesota ay rabaan in governorka ay ka qaataan positionka oo Minnesota ay noqoto red state oo red state way xisbiga jamhuuriga inuu governoraha ka noqdo attorney generalka ama xeelaliyaha guud positionkiisa ay qaataan shaqo adag bay ku jiraan oo stateka waxay rabaan inay xaggan u soo weeciyaan republicanska oo the GOP-ga programkaas ay u soo weeciyaan marka Soomaalida ay wax u arkaan caqabad ka hortaagan arrimahaas maadaama ay codeeyaan oo ay dafdafna badan yihiin marka Soomaalida cadaadiska la saarayo waa cadaadis ku wajahan Tim Walz Keith Ellison Ilhan Umar dadkaas buu ku wajahan yahay Soomaalida waa loo sii maraya because fraudkan lacagtan hadda isdaba mariyay waxaan la xaday 2020 bay ahayd 6 sano kadib waxa boorka looga soo jafay waa in la dhahaa Tim Walz oo governorka ah nin shaqadiisa qabsan kara ma aha
shalay idin sheegaba marka intaas aan rabay insha Allah tacaala inaan maanta arrimahan soo galootiga iyo barnaamijyadan aan kala wadaago wixii kale oo ka soo kordha iyo update hadaan isa siinayno insha Allah tacaala waan idin la soo wadaagi doonaa haddii Ilaahay idmo